ka harsan tahay furitaanka madaarka magaalada Hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyay dib u dhis iyo dib habeen lagu waday xafladiisu ay ka socotay qabanqaabada madaarka magaalada Hargeysa ayaa wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu kulan la yeeshay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Hargeysa kuwaas oo maanta booqasho ku yimid madaarka Hargeysa iyagoo soo indheeyay qabanqaabada iyo dhisitaanka madaarka magaalada Hargeysa wasiirka duulista hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo hadal kooban u jeediyay ardaydaasi jaamacadaha magaalada Hargeysa ayaa ku amaanay booqashada ay ku yimaadeen madaarka waxaanu sheegay in iminka gabagabadii ugu dambeysay xafladda furitaanka la wado waxaanu yiri runtii farxad aad u weyn bay noo tahay maanta aniga iyo mas'uuliyiinta wasaaradda iyo madaxda airportka maadaama nagu soo boqoteen madaarkeeni Cigaal International Airport anagoo gabagabadii iyo tabayaaqadii wadnaa labiyo dhadig mudanayaal iyo marwooyinba jaamacadda Hargeysa maamulkeeda golis admas intaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa in ardayda noo soo diray qiimaha badan idinkuna ina noo timaadeen oo indhayseen madaarkeeni sharaf bay noo tahay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Hargeysa ayayna waxay ku amaaneen wasaaradda duulista hawada Soomaaliland iyo xukuumadaba suurtagalnimada in madaarka dib loo dhiso oo dib habeen lagu sameeyo dhammaan halkan waxa wasiir fadhiya saddex jaamacadood Hargeysa Golis iyo Admas qaybtoodii engineering oo ku yimid halkan aan ku keenay exposure visit ama booqasho cilmiyeed aan aad baan ugu faraxnay soo dhaweynta iyo qaabka uu sameeyay Cabdilaahi iyo Hormuud naga aha waan ku soo wareegnay madaarka dhamaantiis waan soo marnay security-ga aad wanaagsan oo security-ga si badan x-ray-gi kamaradihi xitaa meelo fog oo yaabasan aad looga arkayo magaranaysa marka xigta waxaan halkan ku aragnay waxyaabo aad u cajiib ah maanan madaarka filayn inaan markan maanta soo soconay inuu soo nahaado waayo waxaan ku ogeyn madaarka oo xaalkiisa loo yahay waxaan garanayaa bari hore oo ahayd 1993 mar aan ka soo degnay inuu qol kaliya ahaan jiray oo waliba markaan soo degnay in halkan riyo iyo waxba taagnaayeen aanu ka yaacnay markaa riyaan iyo meeshan qaabkeeda iyo dadka sida ahaayeen maantana oo naga arkayna waxaan kursi ay tahay alxamdulillah baan leenahay inay dad u dhasheen wadanka ay saa ugu jecel yihiin inay sameeyeen wax qabadkan aad ka u balaaran muuqaalkii uu wallaha madaarku markii hore iyo kan maanta uu leeyahay laba la isag dhigi karo iyo wax la isku doorsan karo midna maaha waxaad markaad eegto terminal logiska qaybahan markaasi dadku ay ku soo degaan dadka safarkii meelaha security-ga qaybta kale weytigiska dadku ay ku sugaan meelaha soo dhan waxa meelaha dhulka qaar bariga hore waxa banaan maantana aad u habaysan